dadkiina la harsado ujeedada macnaha shacbigu waa sida weeye yuuxuna yiri 32 baa maxkamad saaran oo la dili intaan calanka la taagi waa kii hor fadhiya wasoomaadana oo dhan waayahay horta maxkamadda ninkii saariye dadka leeyahay waa ka bulaale 2 goor buu ku dilay ninka xaabada lagu dilay aflow isaga soo diray shanbu soo diray xaaba ku soo dilay ninka la yiraahdo in xiriyo halka ku jira wuxuu ku dilay wiil yar oo reerkoodii ardaaga saa hurdu iyo aayar dhafoor kaga dhufta waxaan leeyahay madaxweyne maxkamadda ku saariyay dadka ciyaarta ku leenayay weeye ilaahay baa gacanta maanta iyo ciidanka iyo shacabka yagan gacanta inta isqabsadeen cadowga ku jabiyay baan ku mahadinaynaa jiri horta haddii cadaalad noqotay haddii horumar noqoto haddii wax kasta noqoto qaabka dawladnimada seeska un baa ka horeeyay mooyi dawladnimada adeer u dhaqaajiyo adaa dawladnimada abuuray ay xeel raabiga la yiraahdo waxaana ka socdaa magaalada dhaxun baan ka socdaa 7 nin iyo cibaado kood ninkii dilay weeye 7 nin iyo cibaado kood meelay reerkeeda yaaliin war uma hayna maanta meel alla meelay jireen moogin ninkii nagaabiyay buu ahaa ninkii qaarka naga reebay buu ahaa بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم horta waxa ma hadda iskale oo loo aynu u mahadinaynaa ilaahay weyn ee waaxida aniga oo ku hadlaya gobolka nabgeed anoo ku hadlaya ilaahay weyn ee waaxidan horta aan u mahadinaynaa iyo dawladdeena ayaan u mahadinaynaa waxa weeye horta in la hor keeno waa lagu mahadsanyahay waanu ku faraxsanahay in la hor keeno maanta in la hor keeno nimanka waanu ku faraxsanahay hala fariisto dadweynuhu ha fariisto ولي وحن سيح أسوستا أو أين يدي كبحن إسلا عرّي الرجاء عبد القيح نور فارح الرجاء بولها هو يضو ودمتي هو يديو هتالان أو إندالا أو إيجا جوكتا أيها هيسي قول كيدلين شقفت مركز ساعدة كفرانيا بيتر ورهو يا عبد القيح والعرور تحبطة كسوق بابا بيتري تولي قدر الواكا كاما ركتا قعان أي مسلينو waxay dileen kii adoon oo walaalkay dhalay oo korsaday oo baaburkii hayr toomka ahaa folshe xoojiisa meelada loo dhigay ee la qarxiyay adoon walaalkay dhalay oo korsaday buu ahaa markii wax kale la daayo ummadda ay laayeen oo dhan waa ummad kilka shanaad u dhalatay ulumale caamale magaydale caruur le nin le naag le habar le waayeel le nafxta le dadkan hor fadhiyana waa dadkii dhibaatada geystay anigu waxaan waa nimankaas waxa weeye waajibka ilayeen hal mariyo dadkay ay arkaysaan in dad hor keentaan ma ahayba dadkii hadda galabta waxa weeye dhibaatada ugu daran ka dambaaran karo waxa weeye wax allaala wax hadda
tira afartan ku dhowaa daadsan oo danahoo dalagalata la danahaya in qaarkood intaa laga yaabaa dhibkii hadda aan ku dhex jiraa kulley hadalku wuxuu kaga lumayaa mar naxdin bay igu tahay marna farxad bay igu tahay mar walwal iyo murugay igu tahay marka ay murugada iyo walwalka igu tahay xusuuqii dhibka badnaa ay u geysteen deegaanka gaar ahaan gobolka Jarareed iyo raggii ka baxay iyo hooyadii ka baxday iyo gabadhii ka baxday iyo hantidii ka baxday raggii geystay in aan hor istaago oo halkan ka arko naxdin dhinacna farxad ayay igu tahay naxdinta waxay masaakiin darawal xirfadna caafimaad waxaan macna lahayn baad ku gashay ood ku dishay salaad subax iyagoo tukaday walaalkay baa ku jiray curadkii aabbahay baa ku jiray 8 ilmood oo 14 jirku wayay buu ku dilay muxuu ku dilay eeya asbur maxaad ku dishay asbur maxaad ku disheen hooyo 7 jiray ahay gurigeedii iyo carruurteedii baad kala dhex baxdeen iyadoo bilaa garbasaar oo bilaa googarada ay la bixeen gabadh yar ay dhashay ayaa garbasaartii kala daba carartay kolkay kala daba carartayna intay soo qabteen bay garbasaartii iyo gabadhii guddi u tuureen hooyo miskiinad ay ahayd oo guri Soomaaliyeed kala soo baxdeen بسم الله الرحمن الرحيم bay igu dhacday aniga waa goonagaday gudaheeda banaan meel banaan anagoo farfadhina 3 xabadood la igu dhiftay ina daqaraa kamid oo isaguna ku dhaawacmay ina fariid baa kamid ah ku dhaawacmay digaale nin la yiraahdo ku dhaawacmay galitaanku kolka kale intee 95 nin baa galay 95 nin intii ka dambeysayna waa galitaanka dambe ee laga sheekeeyay goonagado intaas soo dhaafeen ma ku daray ta kale ee dhagax buur cusbur 7 jir baa way ka sheekeeyeen ku noqon maayaan waxay soo dhaafeen gabadh yaro lamaanayd oo ina maxamed khayr sheeg la yiraahdo oo iyadoo lamaan ay ku dhufteen magarinikeedii soo baxay buu yiri intee la baxeen buu gabadha daayay 30 xabood kamay intee ku dhufteen anna waa ku xigay guri agteedan joogay gabadhaas ilmo yar bay haysatay ninkii gabadha qabay siduu Djibouti ugu cararay reerkiisii u baabaayba dhibaatada dhagax buur ka dhacday waxay ka sheekeeyeen laakiin gabadha way iloobeen baan u maleynayaa waxay u geysteen dhagax buur lagama sheekeyn karin waa dhig yacab waan ka bax بسم الله الرحمن الرحيم أنا أضياشا dhagax buur baan ka mid ahay goorta dhawaytoolin kale hadlayay reehbel lahaa madaxweynaha maqliya hoos u dhacbaan dhaaf waan cayb dartii weeye waxaan sida u lahaa anu waxaan kullaba iloobayn ragganagii dhagax buur ka tegay ee maamulka ahaa ee wada suubanaan weligeedna wada shaqayn jiray iyo gardarrada lagu dilay soddon iyo googii shicibka ahaa ee lagu dilay cobolada waxaanu iloobi karna maaha dee raggii kolkaa maamulka ahaa ee watee qiran haya wax lagu cafiyo anuu garan mahayo mana suuroobayso waxaan ahay reer Goldanno agari baan ka imid aqallaan ku dhisay isagoo gudoomiyuu haddana oo baaha anoo aqalkii dhisi buu ii yimid wuxuu igu yidhi aqalkan dhisi waan gubi doonaa ha iska dhisin waka eegay hor taagan waa sida midka kale gawaadhidii ku gubnaa sanxad kulle iyo galaasha dhexdooda oo 8 gaari ay madaxweynaha iyo aad wada aragteen Atlantiikii diri dhawalaha ee iraatada siin jiray shacabkii sanxad kulle iyo galaasha ninkii gubay weeye gawaadhida raqdoodiina waad aragtay madaxweyne waxaan u joogay dhalaabtu arda maxamuud salaam waxay tiri war intaan wiilka yar dhaartiinaad aabihii dishay in yar ii kaadi kuu kaadin mahaye wiilka dig buu yidhi intuu dheeyey uu geedkii ceelasha Goldanno ahaa geedkii weynaa ee bardaha iyo intuu gowracay oo diricii ka furay iyo sidaa gaashii balsaan u galay daad yidhi sharifadii oodaysay cabdimadoobe cabdi ibraahim sidaa iyo sileeg iyo wiilkeediiba
waxdada waxa ku haray laba wiil iyo gabadh isaga gowracay waliba uu gowracay bilaawo calaama xun oo dadku lahayn uu leeyahay hal la eego oo shacabkana leeyahay bal caloosha adkaysi waxa horyaala waxa weeye xasuuqi garba ka dhacay waa horyaal kiiguna gada ka dhacay waa horyaal imisa caruur ku dhimatay imisa hooyo lagu waayay imisa dad shacab lagu gumaaday ila si la yaab ka badnaa waxa kamid ah laba nin wali xasuustayda kama baxan waxaan xasuustayda ka baxan laba nin oo dhalinyaro ah oo baabuur iyo ku shaqaystay soo iibsaday nin waxa la oran jiray cali bullaale korkiisa meena uu dhigay caruurtiisu ku korsanay isagana soo shaqaystay xoogiisa waxa jiray oo soo kacay jiray oo gaarigiisa la soo tagay oo sidoo xoogiisa ku shaqaystay waxa lagu gubay baraxan baa lagu gubay waxa lagu gubay baraxan baa lagu gubay idinkana waxa la idin sheegay wala taxreynaya wala idishaya wala idin sameynaya baabiinta dadkiina iyo shacabkiina waxaan u soo noqonayaa ilaahay baa mahad iskale maanta inoo fadhiisiyay waxaan u malaynayaa balorta dadweynuhu aan aamusno innaga arrinta laynoo hayaa innagaana haysana arrintee horta hadalka hala yareeyo buuqana hala yareeyo waxa weeye ta kale anugu haddii aan ka soo qaado wixii aan goobjoogu ahaa haddii ay noqoto meesha mula la yidhaahdo meesha quraan la yidhaahdo meesha hore khalifa la yidhaahdo meesha araarta la yidhaahdo meesha la yidhaahdo biya cadde meesha la yidhaahdo ma garanaysaa hore hawd intaas oo dhan dhibkii ka dhacay ee hoggaaminta iyo ciidanka bixinayay waa ninkaas iyo ninkaa kale labadaa nin weeyaan intaas dhibka ka dhacay waxaa lagu dilay hadda 500 oo qof oo rag iyo dumarba leh dhibkaa meeshaa ka yimid ilaa daambi ilaa digdigley ilaa ma garanaysaa daadhi ilaa camad leh ilaa meel aan wax lagu dilin intaas mayna jirin aniga adeerkay iyo 5 ilmaadeernaa adeerkay oo tukanaya oo maghrib joogo oo aabbahay walaalayiin oo maghribkii sidaa u tukanaya sidaa ayaa maghrib loola yimid meesha dhalaandhiga la yidhahdo wuxuu ku dhuftay 5 waxa weeye dhibku haddaba nin uuna ku soo dhicin oo xukuumadda kilalka sanada wax aan ma jiro waxa weeye nin horumarkii laga gooyey nin dadkiisii la laayay nin la baabiiyey gabdhaha baytariga lagu guray iyo gabdhaha basbaaska lagu shubay iyo wixii nagu dhacay waxaynu maanta sheegi karra maaha war wixiisa waxa weeye markay saa u dhacday maanta rag baa inoo kacay rag baa inoo halgamay rag baa inoo diriray rag baa waxay tacab waxna ku yimid maanta adiga iyo xukuumaddaada iyo xusbigaaga iyo dawladdaada ayaan ugu mahadnaqaynaa 100% ilaahayna mahadda ha ku siiyo ilaahayna ha idin liibaan dhammaantiin